inkastoo aanu qabno maalin ay Soomaalidu leedahay oo ah 15 May haddana labadaba isku si looma xuseen laakiin waa la wada xusaa marka International Youth Day ma aha markii ugu horreysay aan xuseenno marar badan oo kala duwan ayaa xusnay mar kastoo la xusaayane munaasabad gaar ah ayaan ku xusnaa barnaamijyada la xiriiro dhalinyarada runtii waa barnaamijyo muhiimad gaar Soomaalida u leh maxaa yeelay waxaan ogsoonahay shacabka Soomaaliyeed 70% inay yihiin dad da'dooda ka yar tahay 35 maadaama ay saas tahayna inay muhiim tahay maanta marka laga hadlayo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ah dhalinyarada haweenka odayaasha marka la fiiriyo sektorka dhalinyarada inuu yahay sektorka ugu muhiimsan oo markasta oo qorshe la dejinayo oo dowladda ay dejinayso amaba dalkan problemkiisa in la xaliil la rabo in lagu xisaabtamo ay tahay marka su'aalaha markasta la isweydiinaya waxa waaye dhalinyarada inta badan waa la hadal hayaa qof kasta oo mikrafoon qabto wuxuu yidhaahdaa dhalinyarada waa loo baahan yahay dhalinyarada waa inay saa qabataa laakiin dhalinyarada iyaga maxay aaminsan yihiin ma ku qanacsan yihiin nolosha maanta Soomaaliya ay kaga jiraan marka loo fiirsho adduunka ma ku qanacsan yihiin waddankooda siduu xaaladiisa meesha ay marayso maxay ka qaban karaan oo isbeddel ah ay ka sameyn karaan xaaladda dalka maanta maraya maxay u baahan yihiin in gacan laga siiyo si ay isbeddel u sameeyaan su-aalahaas waa su-aalo qof kasta inuu isweydiiyo ay waajibtaa oo dhalinyaro ah maxaa yeelay maadaama hadda haddii waddankan la faa'iido 70% dadka faa'iida idinka aad tihiin haddii la khasaarana 70% dadka khasaare aad tihiin in mar kastaba aad ku xisaabtantaan muhiimadda ay leedahay in dalkan caqabadaha hortaagan laga hor wareejiyo idinka aad gacan ka geysataan dhaqataan dadkii haddii la faa'iidayna faa'iido haddii khasaaro jirana khasaaraha sida loo yareen lahaa ka shaqeeyo waxay la tahay arrimahaasito inay aada iyo aada muhiim u yihiin dhalinyarada noocyo kale duwan ay isugu jiraan adduunka markaa fiirisidne aada loogu xisaabtamaa aniga markii ugu horeysay oo urur dhalinyaro aan sameeyey wuxuu ahaa 2002 October waxyaabaha igu dhaliya waxaa ka mid ahaa waan xasuustaa July 2002 maya ka hor April ayaa waxaa jiray shir ka dhacay Jarmalka oo looga hadlayay dhalinyarada markaa shirkaa tegay ayaa waxaan ku soo arkay nin madax ka ah World Assembly of Youth waa ururka golaha adduunka golaha dhalinyarada adduunka urur la yidhaahdo oo ilaa iyo muddo dheer 50 sano ka badan dhisan ayaa meesha ku arkay markaas wuxuu ii sheegay inuu jiro shir kale oo ka dhacayo dalka Malaysia July markay tahay shirkaan isku diyaariyey shirkaan ka qayb galay markaa shirka tegay waddanka Malaysia waxaan ku soo arkay in ka badan 20 xurun oo dhalinyaro ah oo mid kastaba lagu barto hogaaminta mid kasta lagu barto dhalinyarada lagu barbaariyo dowladda Malaysia waqtigaas 50% waxay soo mareen ururada dhalinyarada soo mareen dadka mas'uuliyiinta ka ahaa dad la soo diyaariyo oo la soo barbaariyo oo waxay ahaayeen runtii u diyaarsan meesha markaas ay soo gaareen 2002 markaa meesha tagaan waxaan aaminsanaa oo maskaxdeeda ku jirtay xilligii kacaanka hal urur dhalinyaro basaa jiray ururka dhalinyarada Soomaaliya la dhihi jiray waxaan soo arkay inay ururo fara badan ay jiri karaan laakiin urur kasta uu qabanayo shaqo u gaar ah oo isaga u gaar ah laakiin ay ka midaysan yihiin codka dhalinyarada waxaan rajeynaa dhalinyarada Soomaaliyeed inta hadda joogto iyo inta nagala socotaba meediyaha iyo inta kaleba in ay muhiim tahay in jawaab loo helo xaaladda maanta dalka uu marayo dhalinyarada ma ku faraxsan yihiin ma ku qanacsan yihiin mase waa iska aqbaleen maxay ka bedeli karaan maxay ku soo kordhi karaan maxay ku xoojin karaan dadaallada socdo sidii mataqaanaa loogu baxo
caqabadaha taagan oo Soomaaliya dowladnimadeeda iyo geedi socodka Soomaaliya dowladeeda hortaagan